أطباء بعالمنا kusoo dhawaada channelkeena nolol caafimaad maanta waxaan jeclaystay in aan maxaan ku dhahaa discussion ama update aan iska siino covid-19 ka iyo xaaladda wadanka uu ku sugan yahay caafimaadka guud ahaan waa saata aragteen dawladda ay soo rogtay amaro ku saabsan bandowga dawladda bilowday in maasaska ay qeybiso waxay dawladdii kordhisay in macnaha baaritaanka la sameynayo kaysaska ay la ziyaadiyo ilaa markaan wuxuu ku dhow yahay 2,000 kays uu ku dhow yahay 1,000 iyo xoogaa soo maray ay ugu wardambeysay marka maanta waxaan jeclaystay dhakhaatiir inaan iskugu waco Zoom meeting kaasna aan discussion fiican aan ka sameyn insha Allah kulay waxaan idin la wadaagi doonaa fikradaha ay dhakhaatiirta ay haystaan waxaa jiray video aan ka arkay YouTube-ka videogaasoo yani ka sharxaya qaab oo aragti maxaan ku dhahaa maanta ku saleysnayn science ahaan oo ku saleysan bas maxaan ku dhahaa information laga soo ururiya caalamka guud ahaan daawasho wacan kulay wixii oo fikrad ah ama discussion ah oo qabtid aragtidaada nala wadaag oo comment section nala wadaag asxaabtaada inaad la share gareysaa iloobin insha Allah sidoo kale subscription ka ha iloobin nagu soo biir oo subscribe channelka si update ah ula socotid wixii caafimaad iyo aqoonba aan isweydaarsanin insha Allah meeting noocan badan waa qaban doonaa hadii Ilaahay idmo haddana meeting kan daawasho wacan نجوب الأرض نطرقها رضا المولى هو الثمن ونسعى inaan update iska siino oo hadhowna aan u bandhigno fikradeena oo update kan oo covid-19 ku saabsan ummadda Soomaaliyeed si taxadirkooda ay u laga jibaaraan insha Allah waxa waaye intuu cudurkan soo jiro haddii oo hordhac ay sameynayeen dhakhaatiirta kale oo idin soo dhaweynaya waxaan jeclaysan lahaa intaan hore u sii gudagalin barnaamijkeena video yar in aan idin share gareeyo kadibna wixii oo maxaan ku dhahaa fikrada aan isweydaarsan insha Allah Soomaaliya kaga hortagi karta coronavirus waa inuu ku dhacaa 60% 10 qofba 6 qof waa inuu ku dhacaa inta aanad walwali kaadi waxa arrinkan qaba sharaxaada difaaca dabiiciga ah ama health immunity iyo sababta ay Soomaaliya ugu qasban tahay dawladda federaalka sidii ugu diyaar garowday cudurkan Soomaaliya qaab NGO ah ayaa loo wajahay COVID-19 si la mid ah masiibooyinka ka dhaca dalka sida abaaraha daadadka iyo xitaa qaraxyada oo gurmadka loo fidiyo macaash laga doono caafimaadka dalka oo ku tirsan darbixiyaasha caalamka wixii laga helayaa baratan loo galay ogeeba waxaa isku abaabulay kooxo kala duwan xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda caafimaadka gobolka Banaadir ururka dhakhaatiirta iyo Bashiir Goobe oo dhowr sariirood meel dhigtay eedeymo kala duwan oo aan xaqiiqdooda la hubin oo ku saabsan lacag la nusaday kadib waxaa xabsiga loo taxaabay agaasimihii wasaaradda caafimaadka haddaba xaalku marka uu sidaa yahay qorshaha Soomaaliya ay kaga badbaadi karto coronavirus waa inuu ku dhacaa 60% shacbiga qorshayaal ka wanaagsan ayaa jira balse suuragal kama aha Soomaaliya xaqiiqooyin jira awgeed sida daryeelka caafimaadka ee dalka oo liita dhaqanka dadka Soomaaliyeed iyo duruufaha dhaqaale ee ku xeeran doctors muhiimadda video aan ka lahaa muxuu ahayd qeybaha awoodda Soomaaliya meesha gaarsiisan tahay in ay joojiso covid-19 ama ay ka hortagto sida bandowiyada ay ku soo rogtay wadamada qaarkood bandowiyada ay soo qaateen oo macnaha dadka guryaha in la joojiyo shaqooyinka la joojiyo iskuulaadka la joojiyo waxbarashada la joojiyo fikradda oo soo koobayo videogan waxa weeyaan in macnaha aysan Soomaali awoodin taas oo ay awoodo dadka inay iska ogolaadaan waxooda ay sameystaan oo herd immunity la sugo marka ma ku raacsanahay ma dhihi karnaa dadka iska yaacaan sida hadda ay iskaga yaacayaan oo suuqyada la joogo public transportation la raacayo masaajidada la iskugu imaanayo hadda ciida nagu soo foodleh ciidaha loo adeeganayo doctor Abdulghani aan ka bilaabaya ما صدق سمي سبحان في عناله رجع على سنة جوار ماشي وحوار ماشي نهضر هذا اسكله ماشي في اللون أي ديار ما سنتين ما شاء الله دبنتين horta hore covid-19 marka la fiiriyo iyo Soomaaliya horta hore waxa waaye
waxaan ka xumahay inaan waqti annagoo dowlad ahaan u diyaarsanayn hortaba dowladaha hadda adduunka horumaray ayaaba ka qaylinaya oo dadkii maadaama guryaha joog la yidhi oo wixiina waa idin siinaynaa waxaa laga yaabaa budgetkii ayaa hoos sii dhacaya marka taas waxay keenaysaa qofkii inaan gurigiisi hadda waxaa arkaysaa waddamo qaarkood xataa inay saxay balle dadkii is ilaaliya qofka isku aragtaan soo celiya arrintaas aniga ma hubo laakiin waddanka hadda tusaale ahaan aan soo qaadan karo waxaa kamid ah Sweden oo kale hadda waxaan warbixin aan kusoo maqlay dad meeshii joogaan waxay dhaheen dadkii waa la fasaxay qof fasaad sida Soomaaliya oo kale oo magaalada Roos ka arkaa qofkii maaskiisa iska xirana qofkii la calaamad isku arkaa isla markii ama gurigiisa isku karantiilo ama baabi caafimaad loo kale markii aan u maana Soomaaliya wadankii dawlad maanta dadkii gurigiina iska joogteen waxaan ila siinaa dhihi karo ma laha dadkii way ogol yihiin in gurigooda joogaan wax la siiyo laakiin dawladii ma awoodo waa mid tan labaad waxa waaye meesha isku haysto waxay tahay waayahay maadaama dadkii dawladdiisa awoodin oo dawladda hadda la baahay bilaab tahay yar tahay ordun ay tahay dadkiina aysan weli dad anaga waddanka waxa loo kala qaybiyaa developing countries iyo developed countries iyo third world dad la dhahay jirta sida kulay aniga waa laga khibrsan yahay marka aniga waxaan isleeyahay qaabkan ku tirinayaa maadaama Afrika aan hadda Afrika dana waxa waaye wadamo qaar meesha ka tirsan in ka hadalno marka aniga dadka waxaan qabaa caafimaadka waa muhiim hadii dadkan lama dhihi karo iska yaa cagaaladiina galo waxa radin iska sameeyo lama dhihi karo marka aniga talada aan soo jeedin lahaa bulshada Soomaaliyeed oo soo jeedin lahaa waxay tahay in qof walba maadaama guriga la wada joogi karo oo dan lagu wada xiriirto qof walba maal joogiisa cuntadiisa iyo wixii loo baahan yahay in qof walba soo baxayo masti loo dhigo waajib looga dhigo inuu san ka xirto qofka marka sida hadda inta badan Soomaaliya waxa ku badan wax la dhaho kala wareeg sida hadda baawarta kala wareeg aan yiraahdaa marka waxaan qabaa degmo kasta oo dadkii degan yihiin qofkii gurigiisa ka soo baxa mask la'aan in la dhaho kala wareeg naq adiga maskiga kuma xirno ma fahantay maskiga marka la isku haystaa qofkii ma awoodaa inuu soo gato waxa la yaabaa qaarkood maanta aan cuntada culin lahayn haysan see marka mask qof haysan loo cadaadin karaa dhigta ilaa samaysan marka anigu waxaan aaminsanahay dawladda iyo ururada rayidka iyo dadka shacabka inay isku tagaan marar la dhaqi kala jirto oo mask ah in maradaas soo galo dadka aan waxba awoodi karin oo maanta aan waxba haysanin in maskaas marooyinka loo qaybiyo iyaga maanta marada loo qaybiyo qofku uu dhaqan karaa maalinta ka laba xabad la siiyo ama xabad la siiyo habeenkii intuu soo hurdaayo intuu soo dhaqdo mariis ku waran karaa subax markuu soo kacaan maskiisa soo xiran karaa oo bixi karaa marka aniga waxaan isleeyahay xaalka kaliya ee Soomaaliya looga aadan haddaan dhaqaatiirnahna oo dadkan bulshada aan ka wacyigelin waxay tahay maadaama guryaha la joogi karin in qof walba uu waajib u yahay كان فقيرك كان تاجرك كان نحاتك الماسكاس مرض إلا وحيرته هذا ما استاذ دكتور وحيوحي جليسكا دكتور كنيني دكتور كنيني فكرة هذا نصو كوبايا ترى دخلنا ما زنت هاي رنتي وحيابا ترى دخلنا كوافق سناي لكن حرب هنا وحير فافاهين مالتي إدارنا كبيحيو ميدو كوباد وحواي مركل يرادو فيديو داودي هراو داودي waxaa moodaa moogtahay adduunka waxaa fiican scientifica iyo maxaa la yiraahdaa reality on the ground inay iskeeni karaan yani waxaan ka wadaa xaqiiqada Soomaaliya ka jirto iyo waxaan leeyahay scientifically wanaga dhan waa wada ogsoonahay herd immunity inuu maxaa la yiraahdaa difaac u yahay cudurro fara badan kaliya ma corona laakiin cudurro fara badan uu difaac u yahay laakiin mid corona waxa loo qaadan karin oo maaragtay u baahan in ama faahfaahin laga bixiyo ama arintaas laga digtoonaado lama yaqaano duration qofka antibodies oo ku qaadan karo marka waxaan u maleynayaa fikrad mabda'iyan Cabdiqani aan laga waafaqsanahay oo ah in aan gacmaha la saaranin aan la dhihin wallahi 60% let us expose dad badan qabaan aan expose gareyno asbaabtaas aniga marka ururiyay waxaan iriyay videogan maxaa la yiraahdaa meelahaas wax kama fiirinin scientifically حتى هدي عذره لو سمين جري coronavirus let us test coronavirus معلومات حتى حسين سيانده حتى information ما أنت كده بيسوي حباي الصوتراي مركا لقوما دقيق كرو أرنت coronavirus اللي هذا هلا سميه herd immunity أو ضد كارس كيف الصحة كده بقى يوم كرنا maybe هذا يسوينا وحلاقيها بقى ميدا هذا أنا كنت بقى وأنا كنت بكي كرن وضد يسوينا وحمركا فيروس ودمنا يوروب ودمنا عفانات وهو رأي كجرتها صفقة هرب دي عنده فرونت لاين كم يتاعي حق عافماتك مركب statistically وديارسن تاعي وهي تقارنا population intelleg أيا comorbid population intelleg أيا محل elder population intelleg أيا محل هذا سيدو كله وهي إسبربر دكتا أيضا
economic impact uu keeni doono iyo maxaa la health impact uu samayn doono marka ayadoo qodobadaas la soo ururinayo waxaan ka qabaa fikradii ahayd cabdiqani oo ah in anaga protection kana la wado marka wixii inta ka dhax baxane iyaga herd immunity marka dambe noqon doono waxa waaye mesela dhalinyaro fara badan oo kale haduu ku dhaco oo sida hadda kumanaanka gees la marayo ilaa 2000 ku dhawaad wax yar dhiman waaye dadkaasi waa immune laakiin anaga ma caddayn karno naftirkooda inay immune yihiin waxaan isleenahay marka qiyaastii maxaa la yiraahdaa fikradda ah herd immunity-ga waxaa ku jiro madow badan waxaa ku jiro mugdi badan waxaa ku jiro arrin aad moodid runtii inay marin habaabin tahay waa laga yaabaa in meelo kale si political waxyaabo kale laga fiiriyo laakiin aniga scientifically markaa u fiiriyo markaa kasoo tago dhinaca siyaasadda scientifically markaa u fiiriyo percentage dadka oo nooga dhici kara xataa isbitaallo mu hayna oo lagu daaweeyo waddanka ma leeyahay intaasoo ventilator oo maaragtay haddii la yidhahdo dadka hal expose gareeyo cudurka oo soo rito intee la geynaa hadda waxa waa xaaladdu ay xunta ay liidataa iyadoo protection jiro oo guryaha la joogo oo shaqo badan ay socoto waa run dabcan wadamo badan lamid ma nihin laakiin arrinta markay noqoto hal isku fasaxo meesha hadda 2000 oo naga marayo wuxuu naga gaari lahaa 100,000 marka ma qabo risk exposure-kaas zaid maaragtay la sii buunbuuniyo oo qaab cilmiyeysan loo bedelo aad u mahadsan tahay doctor Fattax waxaan siinayaa su'aasha inuu discussion yar naga siiyo asigana doctor Maxamed Mukhtaar doctor Sodo aad u mahadsantihiin sida fiican oo labada dhakhtar iga horeysay barnaamijka sida fiican oo ay u taxliiliyeen aad u mahadsantihiin barnaamijkan COVID-19 dhaqaatiirta iga horeysay aad wax waaye ugu dheeraaday wax badan ka sheegay waxaan rabaa in yar inaan ku kabo Soomaaliya markii loo soo laabto herd immunity-ga macnaa ma ahan waxa anaga qaadan karnay laakiin wax oo waddanka iyo guud ahaan sida systemka iska jiraba iska noqonaa wuuna noqdaba almost hadda laakiin herd immunity-ga sida wadamada hadda Sweden oo kale iyo wadamada waxaan u maleynaa wadan kale jira isagana saas oo kale laakiin Sweden oo kale sida dhakhtarka sheegay lagu ma dayan karo talaabooyinka ay qaadayaan talaabooyin ay ka feejignaadeen marka hore oo strategic ahaan loo dejiyo ahaa systemka Soomaaliya marka la fiirinayo maba lihinba wax la dhahayo health system wax la dhahayo maba lihinba Soomaaliya maana strategic health system care wax la dhahayo Soomaaliya uma degna wasaaraddeena iyo dawladda laftirkeeda wax waa way dadaalaysaa inta tabarteeda ah laakiin Soomaaliya caafimaadkeeda macnaha guud ahaan system oo strategic oo loogu talagalay ama loo maraayo ama loo tacaalayo xanuunkan ma jirin markuu imaaday ororada la galay ororodkii ilaa iyo heer wixii la gaari karo la qaban kara way dadaaleen wasaaradda iyo tiimka caafimaadkaba waxay noqoto marka intii oo wax laga qaban karin in laga qabto intii bulshada wax loogu sheegi karin in loogu sheego bulshada intay wax maqlaysana inay amaradii qaabkii wax u maqlaan inay u qaataan intay wax maqli weyso kamaarm weyso duruufo jira awgooda noloshooda ula tacaalaysana inay ula tacaalaan Soomaaliya caseska inta tira ahaan hadda la sheegayo in ka badan ku dhacday xanuunka waxaan qiyaasaa boqolkiiba 40 ilaa iyo boqolkiiba 50 waxaa la dhihi karaa dadka way gaareen 40 ilaa 50% Soomaalida waxaa la dhihi karaa guud ahaan xanuunku wada gaaray intii ay la xanuunsan karto la dhiboon kartana way ku dhiboodeen oo qaar way ka fiicnaadeen intii uu dhiman kartana way u dhinteen laakiin percentage-ka qiyaas ahaan oo u dhimatay aad uma badna marka loo fiirinayo wadamada hadda naga horeeyo oo aad u baabi'iyay sida Mareykanka iyo Talyaaniga iyo wadamada hadda safka hore ku jiro oo adduunyada wax waaye dadka badan ka laay wax badan markii ay baaritaano iyo statistics la sheegayo la fiirinayo ama guud ahaan waxay leeyihiin Africa hadday waxay leeyihiin Africa waxa laga baqaa in xanuunkan uu ku raago ama waqti badan uu ku jiro ama waqti badan uu ku daaho taas marka waxay ka qiyaas qaadanayaan xanuunkoonan loo haynin strategic lagu xakameeyo wadamada badan oo adduunka ka soo bilowday China ka mid tahay wadanku way xakameysay xanuunkii Wuhan uu ka bilowday Wuhan kaliya lagu ekeeyay in la controlo China wadamo oo magaalooyin badan oo China ka mid ah xataa xanuunka aad uma gaarin mana faafin kaliya Wuhan lagu xakameeyay aad loogu xakameeyay magaalooyin badanna ma gaarin saas ay tahay xanuunkii waxa la isku dayay in meesha uu ku jiro kaliya hadana lagu baabi'iyo dadkii wax waa laga xareeyo la buufiyo guryihii iyo eeridii markaas wax waaye xanuunada markaas ay u badnaayeen dhan
tracing lagu sameeyo dadka la daba raaco dadkii markaas gaaray waxyaalahaas dhan strategic oo fiican ay waxa waaye ay u dejiyeen ay kaga daba raaceen meesha wadamo badan oo waxa waaye intuu ku dhuuntay waqti hore uu galay kadibna gadaal lagu feejignaaday in xanuunkii soo galay wax badan uu ka baabi'iyey waddanka hadda Mareykanka iyo waxaa ka mid ah Iran iyo Talyaaniga saddexda waddan oo aad ka hadda waxa waaye markii hore aad ugu horumaray waliba Iran aad ay u xakamaysay waqtiyada hore aad u waxa waaye u baabi'iyey xanuunka aad u kacay laakiin wixii ka dambeeyay strategic fiican markay qaateen aad u xakameeyeen annaga marka Soomaaliya wuu soo galay wuu ku dhaxyaacay intuu gaari karana wuu gaaray ilaa ay haddana wuu socdaa hadda goboladii uu gudbay oo waliba tuulooyinka magaalooyinka iyo ilaa ay hadda waxa waaye wuu socdaa oo magaalooyinka iyo waxa hadda ku dambeeya maamul goboleedyada iyo magaalada xamar laakiin oo kale marka la fiirinayo oo aad u gaaray intii markaas immunity ay ka samaysan kartana almost waxa la dhihi karaa ama xarunka ama waa wada qaadaba xakameyn badan kadibna intii uu xanuunka marka hore soo ritana wixii la tacaali karo tiimka bahda caafimaadka dadaalka badan ay sameeyeen isbitaalkan Martiini waxay kula tacaali karaan way kula tacaaleen laakiin inta ay ka gaartay percentage-ka ama tagtay ama maanta waxa waaye ay qabteen aad u yarba inta ku dhacda marka la fiirinayo baaristana waa iska taqaaniin baarista waddanka guud ahaan ma la samayn karo qalabkii iyo baaristaanka dartiisoo yar dad yar laga yaabaa ama dad ama high official ah ama dad somehow connection iyo waxyaalahaas inay qaarkood laga yaabo inay ku gaareen ama meesha suuragal ah inay baaristaba helaanba marka lambarka baarista helaya aad u yaraa marka inta aan la baarina aad u badan oo xanuunkana qaaday tirada marka saxan oo Soomaaliya wax waaye waxaan dhihi karaa 50% xanuunka qiyaas ahaan inkastoo aanan la hubin laakiin qiyaas ahaan inuu gaaro loo badina inta oo u dhimatana qiyaas ma lahayo laakiin almost waxa waaye dhimashada way badneed marka loo fiiriyo inta qofooda gaartay xanuunka marka loo fiiriyo way badneed xisaab saxan lama hayo statistics saxan oo hadda laga sameeyana ma jirto ka dhaqaatiir ahaan iyo wacyigelin iyo bulshada marka ku habboon hadda la gudboon xillidan soo wajahan saa ogtihiin ciidadan ugu soo wajahan oo sida hore ka badan oo dadka bulshada isku imaanayaan bulshada Ramadaan lagu jiray inta badan dadka waxa laga yaabaa inay nasanayeen isku socodkoodu yaraa oo guryaha inta badan la joogay laakiin waqtiga hadda la sii galayo waqti ka duwan Ramadaanka waa uu ka duwan yahay oo dadkii socday u baahan yihiin shaqay u baahan yihiin bulshada meelaha isugu imaanayeen inay wada tagaan xilliyada oo maalinkii awal hore wax lama cuni jirin oo dadka waxa weyn nasan jireen hadda waxay noqonay maalinkii wax la cuno maqaayadii la furo meelihii bulshada ay contact ay ku sameyn lahayn inay aad u bataan marka halka marka oo ugu fiican in la sameeyo ay tahay waxay tahay sida dhakhtarkii ugu horreeyay Dr. Abdulqani iyo Dr. Abdulfataax waxa waaye ay hore u sheegeen inay ayaga markaas waxa waaye in mask la dadka ay xirtaan waddanka hadda aan joogo kala tusaale ahaan hadaan soo qaato magaalooyinka waaweyn oo dhan waa la wada xiray lockdown la geliyay ilaa hadda way ku jiraan xilliga ciida dartiisa lockdown waxaa la sii geliyay 4 ilaa 5 maalmood oo ciida dartiisa loo geliyay oo maalmaha ciida ku aadan si dadka aysan bulshada u soo bixin meelihii yar oo dadka duruuriyaadka waxyaalaha ay ka doonan lahaayeen way furan yihiin laakiin social distance la sameeyna at the same time qof walbana mask inuu xirto waa qofna ma socon karo isagoo mask aan u xirnayn cidii socoto la arko waa la ganaaha marka bulshada marka waxa kaliya ay ku kala fogaan karaan inay kala fogaadaan laba inay mask ka xirtaan cidii ay xanuunka hayso iyo cidii fiyooba marka labada way badbaadayaan marka saas darteed marka Soomaaliya marka hadda wax hal kale uma furna hadii mask wada qaataan dumarka inta badan mask way xirtaan oo misreeri wada qaataan san qiyaasaya marka maskaas waa only option kala sameyn karo iyo social distance inay sameeyaan dadka iyo xanuunka intuu soo ritane in la tacaalo oo meelihii marka meelihii loo idmaday ama la geenayo loogu talagalay inay dadka la geeyo lagu wacyigeliyo dadka aad waxay u diidayaan inay tagaan meelihii positionada loogu talagalay inay tagaan sida Martiini oo kale marka meel hadda oo dad badan oo ku daawoobeen oo Soomaali ah waaye xanuunka meel hadda loola tacaalayo oo loo diyaariyay way tahay marka bulshada waxaan ku dhiirigelinaynaa inaysan meelaha marka ku habbooneen inay la aadaan xanuunka ay ugu fiican tahay inay meelihii loogu talagalay xanuunkaas wax loo xakameeyay inay ku aadaan intii soo hartan inay bulshada wax waaye mask ay xirtaan social distance ay sameeyaan aad ba u mahadsan tahay Dr. Abdulqani iyo Dr. Abdulfataax waxaan rajaynayaa insha Allah kulan midkaan iyo mid ka xiiso badan inaan ku kulmi doono mar kale daawadayaal haddana waxaan soo gabagabeynaynaa kulankeeni aan la lahayn dhakhaatiirta Dr. Maxamed Mukhtaar oo ah dhakhtar caruur oo jooga hadeertan ku sugan dalka Turkiga
magaalada Istanbul oo hana dhakhtar ka howlgali jiray cisbitaalka Rajab Tayyip Erdogan Teaching Hospital hadeertaan ex Digfir Dr. Abdulghani oo asigana ah local doctor oo xamar ka howlgalay iyo Dr. Abdulfatah mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin sida bulshada wax ugu faa'iideysteen kulli insha Allah mawduucyo saan isi ka sii xasaasiyo badan waa soo tubin doona hadii ilaahay insha Allah wa inuu kulanto dambe assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh فهذه مهنتي وأنا عليها اليوم مؤتمن فهذه مهنتي وأنا عليها اليوم مؤتمن